sidaad rabto way ahaane samaantiyo talada qaado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي دمانتين واشياكو عصب oo kamid ah barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee qosooyinka ay inoo soo dirayeen dadka talooyinka na soo weydiista. waxaan u mahad celinayaa dadka nala wadaagaya qosooyinka ay noloshooda ka soo wajaheen. waxaan kaloo mahad celinayaa dadka aqliga u saaxiibka ah ee talooyinkooda ugu deeqa dadka u baahan talada. dadkuna waa isku wada baahan yihiin markasta, ma jiro qof kaligiis isku filan ee qof kastaaba waa u baahan yahay talo iyo tusaale. talada adiga maskaxdaada ka maqan waxaa la dhahaa waxay ku jirtaa walaalka maskaxdiisa. sheekada ayaan inoo bilaabayaa. السلام عليكم أبايو وانكو سلامي سلام غالية. سلام kadib waxa aan joogaa dalka Canada. waxa aan jeclahay inaan kula wadaago qiso aad u xanuun badan oo igu dhacday. abaayo waa sheeko yara dheer, iga raali ahaada. waana sida tan. abaayo waxa aan isbaranay wiil, waxaana isla soconay 6 sano. 6daas sano abaayo dhib iyo dheefba waqtigeyga waan u huray, waayo waxa aan waqtiga dheer u galiyay ninkaas jacayl dartii. kalina iguma ahayne waan isjeclayn. arday ayuu ahaa, waana ugu samrayay. nin walbana isaga dartii ayaan u diidi jiray. 6 sano kadib abaayo waxa uu dhahay hawsheeni aan ka mira dhalino ee imow Soomaaliya haye baan dhahay. waxaan tagay Muqdisho, isaguna wuu yimid. kadib familkiisa ayuu la tashaday. waxa ay dhaheen 1 sano ayaa ku dhiman ee soo dhamee waxbarashada. halkaas sano kadib gabadha iskuursada. taladii buu qaatay. aniga oo familkayga u sheegay ayuu noo soo bandhigay taladii. aniga iyo waalidkay waxa ay igu dhiirigeliyeen inaan u sii samro. sanadkaas waan qaatay taladii. haddana talo kale ayuu ii soo bandhigay oo ah sanadka aan maqanahay aan hawsheena hoos u dhamaysano meherxad. waan ka ogolaaday hawshii. kadib waa u laabtay. anna waan soo laabtay oo waxaan imid Canada. kadib wuu isbedelay. dabeecado cusub baan ku arkay. waan weydiiyay. muddo dheer bay igu qaadatay inaan baadho waxa iska bedelay. ugu dambeyn waxa uu ii sheegay inuusan familkiisu ku faraxsanayn inaan nolol sii wadaagno. isna uu ku raacay. qabiil ahaan ayayna iigu kaadiidan yihiin ayuu i dhahay. isla markaa uu sidaas ileeyahay waxa uu ii soo tuuray warqadaydii. anigii kadis bay igu noqotay, waana dhaawacmay. xaaladuna way igu adkaatay. waxaan ahaa keligay, saaxiib iyo famil cidna lama qaybsanin. rabbi ayaan gacanta u taagtay. waana fiicanahay abaayo. hadda isagii ayaa dib u soo baraarugay oo ileh waan qaldamay. marka Suleekho abaayo maxaad igula talin lahaydeen adiga iyo asxaabta? assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا لهرت مركب كوبات وحتى قفض ذاك إيماننا له سيدا كم وقتا شاكذا ذا نربعتا ذاك باتسو مرتاي إمن كانوات كقدوبتاي إن هنبالي أيام كلها هاي مركب حيكتا هرتوي في عنتها قفكا بوغن حريستا إن الله فيريو hase ahaatee buugan xariista intaanan qofka loo fiirin waxaa fiican in la fiiriyo waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin qofkan shalay muxuu kaaga tagay, maxay ahayd sababtii ugu weyneed ee qofkan uu kaaga tagay. midda labaadna waxa ay tahay sababtii uu shalay kaaga tagay maanta
ma jirtaa mise ma jirto hadduu qofka uu kaaga tagay marka sabab macquul oo qofkaasi ku kalifi karta inuu kaa tago waa waxyaabo la iska cafin karo haday sababtii meesha ka baxdo laakiin sida sheekadaada ka muuqata sababtii uu kaaga tagay waxay sabab aad iyo aad u daciif oo aad u xun runtii oo wax qof looga taga aan ahayn oo ah qabiil hadday ahaydna qabiil haba ahaato laakiin sababtii wali meeshii way taalaa oo kamay bixin oo maanta qabiilkaad shalay ahayd baa tahay isna qabiilku shalay waxaan buu maanta iyo qabiilku wax isbedela ma aha marka hadday sababtii uu shalay kaaga tagay ay ahayd qabiil dartiisa adiga oo wax walba u sameeyay u soo samreeyay 6 sano u soo dul qaadanayay meher qarsoodiya ka ogolaaday waxyaabahaas oo dhan uu fiirin waayay qabiilkii uu shalay toole yiri ama sababta uu ka dhigay inuu kaaga tagay uu wali meesha yaalo ilamaha aniga ra'yigayga inaad cafido ilaahay dartii uu cafi balse inaad isku soo laabataan oo xiriirkeeni soo celisaan aniga kulay jaanis qofkaas u banaanay ima muuqdo kulay dadweynaha kalena way iiga dambeyn doonaan oo commentiga waa laga soo waanin doonaa hase ahaatee ani ra'yi ahaantayda waxaan ku leeyahay waxaad tiraahdaa wadada ku qulqul